wardegdega magaalada Baydhabo xalay ilaa iyo saaki dagaalo culus ayaa ka socda xabad ayaa la isla qsiinaya ciidankii Cabdicasiis lafta gareen ayaana mar kale magaalada inay gudaha u soo galayaan ku hanjabaya bal eeg xalay rasaas iyo daryanka ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Bay maaha markii ugu horeysay labaad ama saddexaad toddobaadii ugu dambeeyay oo dhan ciidanka lafta gareen waxay xoog soo saarayeen gudaha magaalada Baydhabo iyagoo diiradda saarayay inay xukunka xoog kula wareegaan ayna ka tuuraan ninka ay ku sheegeen macaangaga oo Cabdicasiis lafta gareen haddaba maxaa socda waxaan ku hayaa xog iyo macluumaad dheeriya oo la xiriira magaalada Baydhabo oo mar kala gashay jawi cabsi iyo qalqal iyadoo shacabka xalay aanay hurdo ladin sida aan xogta ku helayno sideebay wax u socdaan waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay aadan madoobe waxa loo cabsi qaba mar kale in xukunka laga farmaroojiyo xasan sheekh ayaa markii hore kursiga awood ku geeyay baa la yiri haddana xasan ciidankii ugu badnaa halkaas uu ka soo daabulay kursigaaga ilaashaa lagu yiri wali lama caleemo saarin Cabdicasiis lafta gareen wuxuu diiday in ninka la caleemo saaro qaramada midoobay aqoonsato si buuxdana uu noqdo madaxweynaha koonfur galbeed midda uu ka cararayo lafta gareen waata oo uu diidan yahay oo uu ka gubanayo oo uu leeyahay ma dhacayso mana aqbalayo waxaan si toos ah u tageynaa magaalada Baydhabo oo aan kaaga soo warramaya xaalkeeda iyo sida uu ku dambeyn karo aragtidaada ugu biiri saaxib muuqaalka like saar siina share gareey waa mahadsantahay mowduucana waxaan ku bilaabayaa saaka wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxay xaqiijinayaan in dagaal xaal halkaas uu ka qarxay kadib markii ciidan ka tirsan kuwa Cabdicasiis lafta gareen duulaan markaasi ay ku soo qaadeen gudaha magaalada Baydhabo sida ay xogtu sheegayso toddobaadii ugu dambeeyay oo dhan magaaladaasi xaalad waxay ku jirtay hubanti la'aan iyadoo oo markaasi ciidanka Cabdicasiis lafta gareen ay mar walba xoog soo saarayeen gudaha magaalada Baydhabo tira madaafiic ay aroor hore ku soo garaacaan baa la yiri oo ay u adeegsanayaan ama ay ku khalqal gelinayaan ciidanka dawladda iyo kuwa taabacsan aadan madoobe waxaa la sheegay in hoobiyaal iyo tira madaafiic duleedka magaalada ay ka soo ganaan iyaga oo rabo in magaalada gudaha ay u soo galaan ciidan infantry oo lugeynaya ayaa gudaha magaalada soo gala baa la yiri subax hore kuwaas oo qalqal galiya amniga iyada oo ay ridayaan rasaas Cabdicasiis lafta gareen oo dhawaan afayeenkiisa uu warbaahinta ka soo muuqday wuxuu si cad u sheegay inay doonayaan in mar kale ay dib ula wareegaan magaalada Baydhabo kadibna si buuxda ay u qabsadaan maamulkana gacan ku hayntii hore ay ku soo celiyaan aadan madoobe isaguna itaal badan ayuu isbirayaa dawladii halkaas xoog ku geysay ee madaxweyne xashi maxamuud majraa u hayay ayaa mar kale garab siinaysa iyada oo lafta gareen Baydhabo dib ugu laabanayo aadan madoobana yaab iyo ama kaag uu markaas soo wajahayo ciidan aad u badan ayaa markaasi magaalada soo buux dhaafiyay habeenadii ugu dambeeyay waxaana la diiwaan geliyay dhaca kufsi iyo boob iyo sidoo kale moobilada ayaa aad loo dhacay baa la yiri ma ciidanka lafta gareena ma kuwa kala ilaa ay hadda lama xaqiijin karo Baydhabo xaaladeedu way kacsan tahay tan iyo bishii March ee sanadkan markii Cabdicasiis lafta gareen laga takhalusay oo halka looga adkaaday aadan madoobana waxaa la leeyahay maba ahani halkaas xukumi karo beelaha ugu badan ama ugu tunka weyn ee deegaanada koonfur galbeed oo digil iyo mirifle la yiraahdo ayaa si diirda ama si markaas adag u diidan xitaa jufadiis way diidan tahay baa la yiri aadan madoobe mana laha hab hogaamineed xitaa qabka iyo ku dhacda iyo awoodda lafta gareen uu isticmaalay iyo kuraajadii uu ku dagaalamayay iyo in uu diidi karo waxyaabaha qaar waxna kula shaqeyn karo dawladda ma laha la yiri waa nin yeesmaana shaqaalaha waa xasan sheekh qadiyada raxweyn iyo digil iyo mirifle guud ahaan iyo reer koonfur galbeedba aan matali karin isla markaana loo arkay nin daciifa ayaa la leeyahay haddaba aadan madoobe halkaas ma sii haysan karaa lafta gareen gudaha ma soo gali doonaa maxaa ka dhici doona koonfur galbeed aragtidaada ugu biiri muuqaalka like saar siina share garee waa mahadsantahay saaxiib muuqaalkan ila daawo xasan sheekh in gacmaha laga jeebay waa dimbile xasan sheekh dagaal oo soo ma aqoonsanidin xasan sheekh maxaa aqoonsantiin حسن شيخ معاه قونسنتين حسن شيخ معاه قونسنتين دقالوغي
dhiigyacaba oo inuu dadka laaya rabo sababtoo qataro ku jira ilaa hadda wadanka annaga ma xaqiijin karno maalinka ee xamar banaanbax nabadoon oo ka dhaco ee wadankaana doorasho ka dhacay inaad taas maanka ku haysiin waaye sababtoo ninkan hadda idoo la banaanbixi rabo oo dadka ku weeraray waa qodob na hor yaal waa su'aal na hor taal jawaabteeda inaan helnaa u baahannahay caalamka maanta wadankeena faraha kula jiro caalamkiina dhaxdhaxaadiyahay waa ayaan daran nagu dhacday nin bulshada rayidka ka yimaaday inuu maanta dadka weeraro oo qori wax ku raadiyo oo dalkan saar raba ka yeelaa yiraan wax la fiirsan karma aniga inta tabarteeda waa ka dhiidhinaa waxa aqbali doonana ma ahan dalkan annaga iska leh madaxweynaha wuxuu meesha ku joogi karaa sharci dadka waxa kala celiyay sharciga hadii la waayo dadka ma kala cishoomayo waxa kala reebaa waa sharciga wax kala xadiyay maanta sharci ma jiro maandeed ma jiro madaxweynaha muddo dhaaf oo 42 cisho filada dhax fadhaa wuxuu ku fadhiyay lama yaqaano wili ciidankii faraha kula jira hadda dhaqan oo wuxuu soo kordhiyay kuwii noolaayo adduunka saarnaayo darajo sii waa wuxuu leeyahay igaar dhinteen oo asiga riski giliyo oo baydhabo ku laayo wuxuu leeyahay darajo siina war qof dhinta darajo maxay u tartaa aan aswarsanay kuwii noolaayo darajo ka waay madaxweynaha qaranka soo maamulay ninkii darajo waay yoo darajo ilaahay ku dhaarshay cidoo darajo ma jirto beenaala waa xasan sheekh 4 sano beenuu sheegay hadda oo sharciyad haysan been ma ka dhageysanaynaa waxaan u baahannahay oo adduunka aan cod dheer ku gaarsiinaynaa xasan sheekh in gacmaha laga jeebay waa dimbile xasan sheekh dagaalooga soo ma aqoonsanidin xasan sheekh maxay aqoonsantiin xasan sheekh maxay aqoonsantiin dagaalooga dhiigyacaba oo inuu dadka laaya rabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh